بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta mawduuceen waxa uu ku saabsan yahay 15 su'aalood oo ku saabsan ama ku wareegaya Sketchware. Haddii aynu iska guda galno mawduuceena maanta, su'aasha koowaad waa maxay Sketchware? Sketchware waa application ay soo saartay shirkadda la yiraahdo MIT Scratch Team, kaas oo isticmaala waxa la yiraahdo Scratch amaba blocks yaryar oo la isku xidhxidhayo si loo sameeyo application oo aan isticmaalayn code caadi ah ama qoraal caadi oo aan la qorin. Su'aasha labaad, Sketchware sidee ayay u shaqeysaa ama sidee apps-ka loogu sameeyaa? Sketchware waxa ay u shaqeysaa qaabka blocks-ka la isku xidhxidhayo iyo drag and dropping wax la yiraahdo, amaba la soo qaadanayo widget-kaad u baahnayd iyo wixii aad soo dhex dhigaysa application-ka sida button-ka, qoraalka iyo wixii la mid ah. Kadibna markaad waxa soo qaadato ee aad samayso drag and dropping-ka, code-ka ma qoraysid, gacanta kuma qoraysid ama qoraalhaan ma qoraysid, waxaa isticmaalaysaa blocks yaryar oo kuu fududeynaya hawsha. Su'aasha saddexaad, Sketchware isticmaalkeedu ma fudud yahay? Sketchware isticmaalkeedu wuu ka fudud yahay marka la eego luqadaha kale ee iyaga caadi loo qoro qoraalkooga amaba typing-ka la sameeyo ee keyboard-ka uu qofku isticmaalay kadibna uu gelinayo code-kii si uu application-ku u sameeyo. Sketchware iyada keliyata sida aan sheegay waxaa samaysa drag and dropping wixii aad u baahan tahay soo dhex dhigaysa application-ka, kadibna waxaa isticmaalaysaa blocks yar oo fudud oo aan hawl badan kaa qaadanayn. Sida awgeed application-nada waxaa ku samayn kartaa waqti kooban. Su'aasha afraad, sidee loo soo install garaystaa Sketchware? Sketchware waxaad ka soo install garaysan kartaa Google-ka ama Chrome-ka ama browser kasta oo kugu jira telefoonkaaga adigoo ku qoraya Sketchware APK, kadibna ka dooranaya version-ka ku habboon telefoonkaaga. Su'aasha shanaad, Play Store-ka amaba App Store-ka waxaa looga heli waayay Sketchware. Marka koowaad, horta lagama helo Sketchware App Store-ka maxaa yeelay looguma talagelin in lagu sameeyo application-nada iPhone-ka. Sidaa daraaddeed, waxaa markii koowaad ay shirkaddu soo gelisay Play Store-ka, balse dhowr sano ka bacdi markii uu Play Store-ka ku jiray, shirkaddu waa ay ka saartay Play Store-ka. Sidaa awgeed ayaa looga heli waayay Play Store-ka. Sababta uga saartay shirkadda iskale Sketchware Play Store-kuna xawaaji caqabad dhaqaale oo soo wajahday. Su'aasha lixaad, Sketchware aamin miyaa oo safe ma tahay? Anigoo ka wadaa Sketchware wax ma kaa kharibaysaa ama dhibaato ma ku samaynaysaa telefoonkaaga? Sketchware gebi ahaanba waa safe, welibana aad ayay safe u tahay amaba aad ayay aamin u tahay. Wax files ah ka dhigid garan mayso, sidoo kale wax carqalad ah ku keeni mayso telefoonkaaga. Su'aasha toddobaad, Sketchware dadka isticmaala intee ayay gaadhayaan? Kadib markii aan baadhay dadka isticmaala Sketchware inta ay leeyihiin, ma arag website qeexaya inta ay gaadhayso tirada userska isticmaala Sketchware, balse YouTube-ka ayaa waxa aan ka arkay in 9.9k oo video laga sameeyay Sketchware. Sidoo kale 1400 channel ay ka waramaan Sketchware iyo welibana inta in ka badan. Taas waxayna tusaa haddii laga sameeyay video inta leeg, sidoo kale channelada inta leegna ay ka waramaan Sketchware in ay userska ama isticmaalayaasha Sketchware ay badan yihiin. Welibana videoyada iyo channeladaasi keliyata waa kuwa English ka soo daaya ama af kale sida Indiyaanka. Su'aasha sideedaad, Sketchware maxay kaga duwan tahay code-ka amaba qoraalka caadiga la qorayo marka la code garaynayo luqadaha kale sida Java iyo kuwa? Sketchware sida aan hore ugu soo sheegnay waxay kaga duwan tahay code-ka iyadoo waxaa la isticmaalaya drag and drop. Xagga code-ka isaga aana drag and drop isticmaaleen ee aad qeexayso waxa ma button ba ma qoraalba
ma web view ma listiba waxa uu yahay. kadibna haddana koodhkii aad gelinayso. Sketchware-yada koodhka ma gelinaysid, markaad drag and drop samayso ee aad soo qaadato wixii aad u baahnayd keliyata waxaa isticmaalaysaa blocks yar oo kaa fududeynaya hawsha. Su-aasha 9 app-ka lagu sameeyay Sketchware koodhkiisa ma la heli karaa? Haa, koodhka waa heli kartaa maxaa yeelay Sketchware waxa ay leedahay meel loogu talagalay oo aad koodhka ka soo qaadan karto si aad ugu isticmaali karto meelaha kale lagu sameeyo Android apps-ka sida Android Studio. Su-aasha 10 application-nada iPhone-ka ma lagu sameeyaa Sketchware? Application-nada iPhone-ka laguma sameeyo Sketchware maxaa yeelay sida aynu hore usoo sheegnay sidoo kale lagama helo Sketchware-ta App Store-ka lagama helo maxaa yeelay laguma talagelin in lagu sameeyo application-nada iPhone-ka keliyata waxaa lagu sameeyaa application-nada Android-ka. Su-aasha 11 application-nada online-ka ah oo kale ma lagu sameyn karaa Sketchware si xogta online la iskula wadaago sida application-nada WhatsApp iyo Telegram iyo kuwa application-nadaas oo lagu wadaago qoraalka, codka, waxyaalaha. Sketchware waa lagu sameyn karaa arrinta adigoo adeegsanaya library ay leedahay Sketchware oo la yiraahdo Firebase. Firebase waxay kuu fududeynaysaa in qoraal ama cod ama file iyo waxyaalaha kale oo la isku diri karo si online ah adiga oo dhex dhigaya application-ka Sketchware ku sameynayso. Su-aasha 12 gameska ma lagu sameyn karaa Sketchware? Game-ka lagu sameeyo Sketchware keliyata waa 2D amaba game-ka sida quiz-ka iyo su'aalaha iyo waxyaalaha ku saabsan, balse game-ka casriga ah laguma sameyn karo Sketchware. Su-aasha 13 ma la isku halayn karaa quality-ga app-ka lagu sameeyay Sketchware inagoo ka wadna user interface-ka amaba application qurux badan ma lagu sameyn karaa Sketchware? Taas waxay ku xiran tahay xirfadda aad u leedahay Sketchware maxaa yeelay qofka imika Sketchware ku bilow ah ma sameyn karo application qurux badan isagoo isticmaalaya Sketchware, balse qofka muddo kusoo dhex jiray waa uu sameyn karaa. Su-aasha 14 application-nada Sketchware Play Store-ka ma la gelin karaa? Haa, waa la gelin karaa application-nada Sketchware lagu sameeyay Play Store-ka, balse waxa ay kaaga baahan tahay in aad leedahay account Play Store ah kaas oo aad hore u samaysatay, haddii kalena inaad samaysato ayaad u baahanaysaa. Su-aasha 15 iyada oo aan application-ka Sketchware lagu sameeyay Play Store-ka la gelin ma la share garayn karaa? Haa, waad share garayn kartaa application-ka aad ku samaysay Sketchware maxaa yeelay Sketchware waxay application-ka u beddeshaa APK kaasoo kuu fududeynaya telefoonka aad ku isticmaasho, kadibna APK-ga ayaad la sii wadaagaysaa asxaabtaada. Intaas ayuu ku egyahay mawduuceena maanta. Haddii ay jiraan su'aalo kale oo aad ka qabto Sketchware nagula wadaag comments-ka xagga hoose amaba ku soo biir WhatsApp group-ka waxaad ka heli kartaa linkigiisa description-ka hoose. Ha iloobin inaad channel-ka subscribe saarto soo kale aad la wadaagta asxaabtaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.